kelmadda sirta waa inaa idin oofiyaa codsigiini ahaa weegi hal mar inaan ku wada kulanno Facebook mise WhatsApp. Facebook ayaa go'aansaday inaan weegi hal mar aan ku wada kulanno. Waqtiga iyo saacadda waxaan idinku soo sheegi doonaa qaybta kommentiga ugu koreeya ayaad jawaabta ka heli doontaan. Bismillah, alxamdulilah, asalaatu wasalaamu calaa nabiyina Maxamed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Walaalayaal, maanta waxaan ka hadlaa mowduucyo oo in badan aad isoo su-aasheen aan jeclaystay inaan halkaa kusoo faahfaahiyo. Waa idinka raaligelinaa, muddo ayaan idinka maqnaa arrimo jira awgooda. Waxaa kaloo jira muuqaalo aan soo duubay ciidii aan u diyaariyay ciidda, laakiin aan soo deynin. Marka muuqaaladaasna dib ayaan kasoo deyn doonaa insha Allah. Ciidda iyo suuqa iyo adeegashadeed waxyaabahaasay ku saabsan yihiin. Muuqaalkeenan maanta wuxuu ku saabsan yahay adigoo safraayo, gaari yar ku safraayo mise bas. Safar almuhiim hadduu muuqaalka ii saamaxana waxaan kusoo dari doonaa adoo wada socda, dariiqa adoo socda micnaheeda. Micnooyinkaas aad ay u muhiim yihiin, micnooyin oo aad u wanaagsan way xambaarsan yihiin, arrimo oo qofka u muhiim ah way xambaarsan yihiin. Inaad ka faa'iidaysan doontaan ayaan rajaynaa. Walaalayaal, nala socdo, like noo saara, noona share gareeya, nala socda. Haddaan ka bilaabo safarka laftirkiisa, aragtida safarka kaliya micnooyin ayuu leeyahay, micnooyin aad u fiican. Waxaa ka mid ah safarka wuxuu tilmaamayaa safar ficlan inaad safri doontid wuu tilmaamayaa. Sida idin sheegay, qof walba iyo xaaladda uu ku sugan yahay ayay u tilmaamaysaa fasirkareeda. Safarka wuxuu kaloo tilmaamayaa arsaaqad badan, khayraad badan. Wuxuu tilmaamayaa xaj iyo cimro. Qofka hadduu niyadda ku hayo kale ficlan. Axaadiisa nafsi way noqon kartaa qofka ficlan safar niyadda ku hayo. Laakiin haddii axaadiisa nafsi aan ka imaano oo micnaha fasirka riyadooda ay tilmaamaysaa aan ka hadalno, waa khayraad badan. Wuxuu tilmaamayaa arsaaqad, waxay tilmaamaysaa ogaasho wax cusub, waxaad adiga aqoonin, inay wax kuu muuqan doonaan, wax kaa qarsanaa. Matalan kasoo qaad waxay ka mid noqon karaan wax asxaabtaada ka dhacayo, yacni arrimo qarsanaa inay kuu muuqan doonaan way noqonaysaa. Wax naftaada aad ka arki doontid aad ku aqoon jirin. Inta badan wanaag ayay u badan tahay. Marka aan u gudagalo adoo gaari ku safraayo, gaariga haddaan u imaado sidiisa wuxuu ka tilmaamayaa nolosha bini'aadanka, sida gaariga yar oo kale. Baskana wuu noo dambeeyaa. Aragtida baska iyo gaariga yar micnooyin badan ma kala duwan, aad ay iskugu shabahan. Gaarigoo dhanba waxa socdoo dhanba waxay ka tilmaamayaan nolosha qofka, xayaatadaada ayay ka tilmaamaysaa. Markaad ku riyootid adigoo ku safraayo gaarigana adiga gacantaada ku hayo, yacni ku kaxaynayo, oo wadadana dhibaataada kala kulmaynin, sida shil baabuur oo kale dhibaato aada kala kulmayninoo wax walba sidii la rabay ay tahay aad xakameyn kartid gaariga. Waxay tilmaamaysaa haddaad tahay qof aan guursanin, wiil mise gabar, qof aan xaas leen haddaad tahay, waxay kuu tilmaamaysaa guur iyo nolol mustaqir ah, degan, dhibaato iyo ku jirin. Iyo qofka kale oo nolosha la wadaagaysid inuu yahay qof wanaagsan oo saalix ah. Yacni haddaad tahay wiil aan weli guursanin, gabadhaas nolosha aad la wadaagaysid inay tahay gabar saalixada. Sidoo kale haddaa gabar tahay, ninkaas aad nolosha la wadaagaysid inuu yahay wiil fiican. Sidoo kale inaad xakameyn kartid gurigaaga iyo noloshaada aad maareyn kartid. Noloshaada oo kuu deganoo jawi degan ku jiro ayay tilmaamaysaa. Haddaad ku riyootid adigoo safraayo, magaalo ayaad u safraysaa. Magaalada aad ka tegaysid ayaa ka wanaagsan magaalada kale u socotid caadi ahaan. Yacni maxay ahayd, magaalada kale waa magaalo sida hadda wadamada khaliijka oo kale, sida wadamada horumaray. Waxaad arkaysaa wadan oo lacag badan taalo, amnigiisa fiican yahay. Yacni wadanka markaad joogtid haddii barbaleme dhibaatooyinka jiray, waxaad ku riyootay wadan ka fiican adigoo tagay. Haddaa caadi ahaan tahay nolosha qof ku ciriirisineed, faraj ayay tilmaamaysaa. Haddii shaqadii wax kuugu xumaa, shaqo wanaagsan oo tii hore kaaga lacag badan, mise taadii lagu dalacaya, wallaahu yaclam. Amni iyo ammaanay tilmaamaysaa. Adigoo wadankan dhibaataysan ka tagay wadanka kale oo ka qanisan oo ka amni badan adigoo u socdo waa arrin aad u wanaagsan. Haddaad ku riyootid adigoo wadankaa ka soo safraayo,
waddanka barwaaqadaha mid faqiir ahoo dagaal badan dhibaato badan adigoo u soo safraya ficlan taana mashaakil yaray tilmaamaysaa maca istikfaar iyo sadaqooyin insha allah rabbi uu kaa yasiri doonaa sidaa idin sheegay arrinta safarka waxay u badan tahay axaadiisa nafsi khaasatan dadka wadamada kala jooga oo wadankii u xiisiyoo kale haddaad guriyootid adigoo wadankii u socdaas dhehen yacni mashaakilay tilmaamaysaa ficla adi wadankii xiisaad u qabtaa taasoo kale rii lama dhihi karo waa iska axaadiisa nafsi tan baska haddaanu imaano haddaad guriyootid adigoo basku safray baski waxaad heshay kuraas nadiifsan meel bannaan waxaad dareemaysaa deganaashiyo raaxo safarkaaga mid quruxsan hadduu yahay waxay tilmaamaysaa fursado wanaagsan noloshaada soo maray isbeddel wanaagsan aad ka faa'iidaysanaysid yacni waa fursado waadna ka faa'iidaysanaysaa baskaas si quruxsan oo u socday jawi degan darawalka baska naftirkiisa si degan ayuu gaariga u waday uu xakamedeynayay dhibaato kama jirin hadday cakiskeeda tahayna waa iska taqaanin haddii gaariga rahay mid darawal waalan wado gaariga ciriiri yahay baska kuraas meelaad fadhiisatid aan lahayn diiqad ka dareemaysa dad xunxuno qaylo badan oo dagaal badan ay bas kula saarnaayeen ficlan waa mashaakilo iidana laakiin haddana maxay ahayd maahan riyada mid mar walba isfasirtay riyooyinka xunxun waxaad samayn kartaa istikfaar waxaad rabbi aad ka magangali kartaa markaa aragtidoo kale rabbi riyadan sharteedan kaa magangalaad leedahay yacni maaha dhibaatadaas inay kuugu dhacayso rasuul calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri riyada wanaagsan rabbigay ka ahaatay midda xuna shaydaanna mar walba liban ma laha guul ma guulaysto marka sidaa darteed riyada xun cabsiyaa laga qaadin haddana sharba maahan waa mashaakil iska yaryaroo haddana aad ka gudbi kartid haddaad ku riyootid bas adigoo bas ku safray oo si degan jawi degan aad ugu safraysay cafwan waxay tilmaamaysaa isbeddel nololeed ka gudbid marxalad adkeed marxalad ka wanaagsan ficlan weliba hadduu qofka yahay qof mahmuum ah dhibaatooyin iyo yani ciriiri dareemay boosteejada baska meesha baska lagu sugo astaanka baska micnooyin ayuu leeyahay intaan u gudagalay micnooyinkiisa qaybta commentigayanu ku dhaafin waxaan kusoo qorayay xilliga aan facebook aan ku kulmi doono maalinta iyo waqtiga insha allah boosteejada baska waxay tilmaamaysaa nolol isbedelayso waxay tilmaamaysaa haddii aad tahay arday waxbarto ka guuleysi waxbarashadaada waxay tilmaamaysaa haddaad tahay qof shaqeeya shaqadaada inay sidii hore kaaga sii wanaagsanaanayso micnooyin badan ayay leedahay muuqaal u qaasan kasoo samayn doonaa sheer noolaha noon la gareeya walaalayaal